إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan aad iyo aad uga tacsiyeyaa boqolkiiba boqolna aan ka xumahay labada dhacdo ee ka dhacday Shabeellada Dhexe, Balcad iyo Jowhar dhaxdooda tuulada la yiraahdo Golley. dhacdada labada dhacdo ka dhacday midda ciidanka lagu laayay baabuurkana lagu qarxiyay, baabuurkaasoo qarax ku baaba'ay 9 wiilna ay ku dhimatay. ninka taliyaha oo ciidankaas iska lahayna uu ahay nin ciidankaas u taliye kana tirsan Shabeellada Dhexe. dhacdadaasna asaga iyo baabuurka ay ku dhacday asagu ma saarayna loola dan lahay oo baabuurkaasi ay ku jeesneen. haddaba dhacdadaas tacsiyadeeda ilaa hadda ama kaag ayaan la aamusnaay. waxa hay'ihii mataqaanaa falkan ka dambeeyay in la helo ayaan hay'ihii mataqaanaa ayaan raadinayay. falkan sida waxa ka dambeeyay loo helo waa adag tahay. dadka labada meelood lagu baaba'shaba waa isku haldad ha ahaadaana yaa isu adeegsaday waayo oo falka ka dambeeyo. 9 waa dhimatay, 8na waa dhimatay. gabdho psychologigooda madaxooda uu isbedelayna waa jiraan oo haddaan la hadlay ilaa hadda qalqalsan oo beeladoodii wuxuudin waa la qaataa waa laga qaatay. aad ayaa loo handaday. wiilasha waxay isla barteen walaalaha ay ahaayeenna haddii haddana la waday in la laayay ayaa haddana laamiga la soo dhigay oo waa la eedayn la yidhi. dhacdadaas waxaa ka culus wiilasha nin ka mida isagoo indhaha ka xiran oo dhaqaatiirta ayuu wuxuu yidhi anaka sidaad rabtiin yeele gabdhaha dhaafa, anaka haddaad rabtiinna dilay dhaafa gabdhaha. wiil ka mida oo indhaha ka xiran oo wiilasha la dilaya ka mida oo dhakhtara ayaa ku yidhi. haalahaas hadday dhacday baaris badanaan galay. taliyaha ciidanka booliiska oo degmada Balcad waa la hadlay, gudoomiyaha waa la hadlay, taliyaha nabad sugidda waa la hadlay, nin xildhibaan hoomaha joogana waa la hadlay. kulligood waa isla jireen. haddaan warsadana nin wixii jira sheegi karo waa ka waay. nin walba nin saaxiibkayo wasiira oo aad aan saaxiib u nahay, saaxiibka iyo shaqadu isma leh oo shaqada qabashadeed waa ku jeclaha mali, laakiin isaga kale waa jecel. wuxuu yidhi idaacaddu wuxuu yidhi wixii dhinto anaku inuu fayris dilay ayaan u tirsanaynaa aan u qaadanaynaa. wixii xunba in shabaab dilay in loo saariyo ma aha. siday ku dhinteen waxaa ku muhiimsan wiilalaa dhintay, ciidamaa dhintay, yaa iskugu aaray. hadday iyaga dhexdooda haddaa tahay oo tahay yaa ka dambeeyo, maxaa lagu baxshay, yaa waxeeyo. annaka calaamatu su'aal weli waxaan ka qabnaa yariisow injineer yariisow baan ka qabnaa calaamatu su'aal.
siduu ku dhintay kuma qanacsanin waa dhintay gabar hayihi mataqaanaa indhaha la aadishay waa ku qaraxday ciidan naftirkeeda la dilay yaa halahaas gelshay yaa ku raray yaa mahageeyey yaa dhex fadhiisiyey yaa waxeeyey yaa joogay yaanse ka maqnaa meesha waaga calaamad su-aalkeedii warkuna waa aska imaaha anuu taagayn arrintaani dad dawladda u shaqeeyo oo in shaqada laga baxsho ka cabsanayo baaristeeda ma laga sugaayo dad buuqsan oo siyay waxyiin aan oqoonna ma laga sugaayo inay haye mataqaanaa iyaguna wixii huban oo wixigee laga helo arrintan caalamkaa wax heli karo weliba haye mataqaanaa dhaqaatiir waayo dadkan dhaqaatiirta caalamka meesha ay hoos tagto weriyaashu meelay hoos tagaan ay leeyihiin oo caalamka dhaqaatiirtu waxay leeyihiin saasoo kale xuquuqul iisaanka waa leeyihiin waa isku xiran yihiin laakiin saas waa waxaa laga sugaa baaristooda iyo warkooda oo xaqiiqo ah caalamka maahini walax lagu kalsoon yahay oo dalkan ka jiro ma jiro dalkan waa laysku haahayaa waa layslayhaa meel walba wax ka dhacowhayaan qof rabta male dil ayay arrintu ayay u badatay waxa wax dilaayana waxaa la leeyahay waa dawladdii aniga dawladda ka mid aan ahay oo baarlamaanka dadka ku jira ayaan ka mid ah aqalka sare laakiin walaxaan fara ku hayno ma jiro sabab waa ku leenahay dhibaatada dalka ka taagan midda kale waxyaalaha la eedayhaayo oo ama nabad sugida ama ra'iisul wasaaraha shaqadan uma taal ninkii qorayay u taallaa waxay basheen asagaa ka dhici kara dadka qofta wax ku dheesha asaa ruqsay karo qofta ayaa wax hagaajisa asaa dalacsay karo arrintaani arrin lagu degdegi karo la dhihi karo qof hebel ha yeeshay ninka la leeyahay mahow taliya ka ahay asagaa ciidankiisii shaqo uu ku leeyahay inayan jirin anaa og